والله شرفت له Soomaaliyeed maanta aad baan u faraxsanahay runtii farxadayda lama soo koobi karo sababtoo ay qoyskan Soomaaliyeed oo halkan London nugula nool ayaa i soo wacay rasiidkan ii soo direen waxay gateen gurigoodii 336,640 wax yar markii lagu daray wiilka guriga iska lahaa oo qoyska lahaa markaan la hadlay wuxuu igu yiri waxaan 340,000 buu igu gaaray waa imisaaqul way walaalaha sharafta leh waa 4 qol 2 musqul garden aad u weyn waaye marna waxaan ku soo dhigi doo gardenka sagaha rasiidka bartaan inaan ku soo dhiga ahayd laakiin waxa waaye sensitive information ku jiro marka walaalaha sharafta leh Soomaaliyeed markasta aniga campaign-keeda dhowr iyo 10 sano la soo dhaafi waa war walaalko guriyaada gala war meeshan waa soo degnay war qurbaha waa degnay caruuran ku dhalnay war homeless ku noqonin guriyaada gado maribaan kugu boorinayaa maya kuguma boorinayo waxaan ku leeyahay guriga aad ku leedahay jigjiga Jabuuti Hargeysa Nairobi Xamar aad ku leedahay walaalow adigana ma degi doontid caruurtaada ma dhaxli doonaan soo gadan kugu haya wiilkan systemka dawladdu maray lacagta waa nin taksiilaagowde lacag badan ma haysto waa nin taksiilaa way lacagtiisa uu safgareystay hanti oo ma taqaana dhaxali wax u helina waa soo gatay lacagtii account ku aruursaday ayr iyo balaayadan iyo ma taqaana misaa ku soo gashana kuma saqajaamin asii qowskiisaba xaaskiisaba waa shaqayn jireen walaalaha sharafta le maanta good news ay la qaybsadeen waa fahanti Soomaa waxaad ogaataa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri arba'un min as-sa'ada waxa kamid ah المرأة صالحة والمسكن الواسع والجار صالح والمركب الهني يعني وحاوية ويري حاس وناكسن قبر وناكسن إلهي سبحانه شرف نكان سي ولالكينا حاس وناكسن يقولي واسعة يدرس وناكسن قاديد وناكسن هذا أنه قولنا ما هينو قاديدنا ما هينو walaalyaalow homelessnimadan ka baxana ninka ugu fiican gaari soo karayso oo taksiilaha gaari soo karaysto inteena kale waxaan ku noolnahay been iyo waxaan ku noolnahay ma taqaana hanti baan Afrika ku leeyahay arrintan waxaan kuugu sheegayaa walaalkayow wiilkan suu mustaqbalkiisa uu fikir ardiyo weer ka fikir hadda waa daawanaysaa laakiin wax laga yaabaa inaad ku qosyo dhaahdo war aniga ma taqaana qurbaha waa ka guuriyaa war rag horta ka guuray oo 30 iyo dhowr sano maqnaa ayaa hadda yimid walaalkayo beenta iska dhaadhicin ku nolol dhabta ku soo dhawaw programka nolosha dhabtaan ku leeyahay markasta maanta caruurtiisa dhaxal buu ugu dhintay ninkaas hooyadaas caruurta dhaxal baa ugu dhintay wallahi gaadhanka ay soo diraan ku soo dhigi doonaa gaadhankaas waxaan u maleynayaa inta soo falaaday ka dhisan karaan mustaqbalka biri haday dhintaan waalidkaas waa dad xalaal waay oo ma taqaana ayad ilaahay ku dhaqmeeno yusikumullahu fi awlaadikum ilaahay muxuu waxa idin dardaarmay caruurtiina maalkaas dhaxalka caruurtaada iska leh anina markaas waxaan ku hayaa dhaxal si walaalkay intaana laga dhaxlin imisa wiiloon arki oo la kulmi oo guriyahoodii laga dhaxlay oo laga qaatay xoog looga qaatay adigana been baad ka dhaadhicinaysa wax leedahay hooyo guri baan Hargeysa kaaga dhisi jigjiga Jabuuti Nairobi aan kaaga dhisi meeshaas waa ku raaxaysan doontaa war maalinta ay nafta ka baxda wallahi cunugaas gurigaas haduu nasiibli uu soo gadanaya hadii kale waa loo diidiyaa hadda aad ma taqaana aad waqti haysa ay soo gadan kulay anigana wiilkan bismaa inta qof iga farxis Manchester wiil baa iga soo wacay guri ka gatay wiilkan Scotland buu iga soo wacay wiilkan ma taqaana meeshii kale iga soo wacay ma xasuusta hadda yani inta soo qof ayaa soo wacdo dhahday walaalow khayr Allah ku sii war fiiri walaalyaalow anaga meeshan waa degni meeshan mar hore imaadina ku dhahay mar hore imaadin laakiin waa imaadi Soomaha mar hadaas imaado meel ama ka muuqo ama ka maqnaaw وافنتي سوما بنت قار dadku barkiisa ay ka dhaadhiciraan hayeelin oo ku dhahay waliba culimadeena qaar kooda kamida meesha waa laga guuriya meesha waa laga socdaa sheekadaas ay ku sheegin ku 30 sano maqnaa waxaan hadda imaado gabar inta laba caruur loo dhalay kor oo nin dhan oo sheekh oo caan ah way dadkan waxa dhigi jiray guuro marka waxaas laga dhaxlo waa khiyaali waxaas been way walaalaha sharafta warkii oo kooban maanta waa arkaysaan waa odigii leeyahay jirka qadadiidan wata soo jeedaan qadadiidan wata marka baaqina way joogaan marka familkaas waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala isku barakeeya mustaqbalkooda Allah hagaajiya cimri dheer cibaado suuban Allah siiya marka ma u baahan tahay informationkaas guri ku gadale ma u baahan tahay haday tahay ila soo xiriir familka ana kugu xiriirinaya waxaan agowday waxa la qarqarina oo umada Soomaal qaar waxay ku leedahay niyo ma taqaana umada yani waxa way waxooda waa sir ay u tahay
meesha arrinta dadkan dad cayr qaatana maaha waa dad official waa dad shaqaysta ayagaan la xiriirin markaan arrinta inta information soo dhigin gurigooda kuma qabanin laakiin waxaan ku hayaa gaadhankoodan kuu soo diraya information ka hadaysid laakiin Soomaalidan waxa la rabaa laab baa la rabaa dawladda xaggeeda raac guriga xamar soo gad 500 kunaad jooga 250 kunaad jooga ayarko lawyer xagga ka qabsa inta lawyer ka qabsa lacag yar haday ugu bato 20 kun laga qaada inta kana gurigaada ku gada waa fahantii Soomaa marka guriyaha nooc badan lagu gadan karo walaalayaalow markaan war walaalahay carruurtan masaakiinta oo halkan ku dhalnay meeshaan aan wax ugu dhimano ya qaar waxay dheen mataqaana shalay markaan gurigaan u sheegay doodoodiyaal qaarkood waxay yiraahdeen Usmaan ani guriga ida xamar mid baa wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri masaajidkaas ku dukanayeen 500 kun uu joogo xamar uu yiri Usmaan haddaan soo gado gurigaan u gada carruurtaan dhow markaan ka dhinto ku dagaalamaanku bal fiir wuxuu iska dhaadhicinaya waxaan ku yiri ninka English bank ah ama cadaanka ah laba carruur dhalaya gurigu kaga dhimanaya markuu ka dhinto guriga ayaga qaadanaya hadday ku heshiyaan laba hal qof loo deeyay kan kale lacagta loo celina haddii kale guriga gadayaano gurigaas lacagta kala qaybsanaan ku kasta wuxuu haystaa lacag deposit ah hafaanti Soomaa yaani qofka Soomaaliga been buu iska dhaadhicinaya ka war 500 kun uu yiri gurigeedu jooga ilaahay idin ku dhaarshay ninkaas ayr maaha laakiin ayr buu iska yeelaya ummadda Soomaaliyeed u badan waa saas marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadeena mustaqbalkeeda Allah hagaajiyo laakiin qudaha miyaan kugu boorinaya maya carruura keenin cidna keenin adiga hay maadin mataqaana 30 sano jooga weligii hal qof ma keeno oo mataqaana aniga aan walaalanahan because meesha nool ma taalo laakiin dadkii soo galaan ka fikirina kuwan waa la soo galay maxaa mustaqbal ah maxaan u qaban karnaa maxaan ku boorin karnaa diintooda saan u ilaalin karnaa taa waa tan ka hadlay walaalaha sharafta marka fadlan waan ku baryaa video waan sii qaybi ummadda Soomaaliyeed si wadaag channel-kan ku xirrow channel-kan waa channel fi sabilillah ummaddaas loogu aqal celiyaa markaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin barkay hatta gurigaada dad lacag badan ani keedo soo gatay soo lacag badan ahayn 20 kun bis laakiin alxamdulillah arurtayda ku ifastigari waa fahanti Soomaa ha ka fikirin guriga wax badan ma gaaray waa raqiis ka fikirin ka fikir bari markay nafta ka baxday ina walaalka iyo aabaha iyo adeerka abtiga awowga iyo waxay kula shaqay qaadan doonaan taas ka fikir midaas ugu dar barakallahu fiikum odigi la jirka oo dhikarkiisa qorkiisa xanuun cholesterol iyo mataqaana gastrigi wixii qabay haddana alxamdulillah ku soo haray kaliya xanuunkii oo aad u liita inta kale ay ka baxeen fadlan waxa kugu boorinaya caafimaadkaada ka fikir inna li nafsika alayka haqqa wa inna li rabbika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa usbada jooji saliida jooji sokorta jooji baasada jooji waxaan faraha badan daldal is jooji biyaha badan cab walaa caafimaadkaada ka fikir salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh